Cabdiraxmaan Dayax oo soo bandhigay arriman aad u naxdin badan isla markaasina sira balse daawadayaal intaynaan muuqaalkan gudihiisa gelin haddii ay tahay booqashadii kugu horeysay kanaalkeenan ansixinta wararka soo booqato fadlan subscribe noo saar waayo subscribe-tu waxay naga saacidaysaa inuu channelkeenu meel sare gaadho isla markaasina uu gaadho hamiga iyo higsiga uu channelkani leeyahay videogan aad daawanaysidna fadlan like saar waayo like-tu waxay ka saacidaysaa in muuqaalku kor u kaco isla markaasina uu hamigiisa gaadho isla markaasina uu Dayax Films iyo gaadho qorada uu videogan u soo jeediyay haddaba daawadayaal youtuber-ka caanka Dayax Films ayaa Muqdisho ka digay maalmihiin la soo dhaafay isagoo la sheegay inuu ka cararay isla markaasina ka cawday dawladda Soomaaliland isla markaasina ku noolaa waqtiyo aad u tarbadan iyo noloshiisa barkii haddaba youtuber-kani ayaa muddooyinka ugu dambeysay saldhigtay carrada Soomaaliya iyo isla markaasina magaalada Muqdisho isagoo muuqaal soo duubay maalnimadii shalay ahayd isla markaasina soo galiyay bartiisa YouTube-ka kaasi oo aad dadka badiba ay uga falceliyeen isla markaasina ay la murugoodeen waxyaalaha ay dawladda Soomaaliland ku sameysay iyo isla markaasina waxa uga cararay haddaba dad badan oo reer Soomaaliland ayaa leh ninkani waxa uu tagay codad isla markaasina iyo dawladda oo yar cadaadisay isla markaasina dadka badankoodu waxay aaminsan yihiin in wiilkani ka cararay cashuur isla markaasina daawadayaal kamuu cararin cashuure ayaa la baday wiilkani ayaa ahaa sababii ugu weynaa uu ka cararay in ay dawladdu sheegtay in ay wasaaradda warfaafinta xukumi doonto isla markaasina edhkaar sii doonto oo xilliga ay doontaan ruqsadda kala noqon xilli allaale xilliga ay noqotona ay ruqsadda kala noqon karaan waayo ilaa waxa uu sitaa edhkaar balse daawadayaal sideen wada ognahay Dayax Films iyo Dayax Show waa mulkiilaha labada channel markaana ma aha wiil ka shaqeeyay telefishinka qaranka balse daawadayaal dawladdu waxa uu la dhaqantay si uu ka shaqeeyo TV-ga qaranka balse daawadayaal youtuber-kani waa mid ka madax bannaan isla markaasina ka daafuran inuu u shaqeeyo TV qaran waayo waxa uu adeegaa in ka badan malaayiin Soomaaliyeed oo ku nool carrooyinka Soomaalidu degtay isla markaasina iyo daafaha dunida waayo youtuber-kani waxa daawada in ka badan malaayiin qof lagamana daawado Soomaaliland oo kaliya iyo Hargeysa balse daawadayaal xukuumadda Musabiixi ayaa keentay caqli ah in lacagta laga qaado isla markaasina YouTube-da lacagta uu ka soo saaro la qaybsado maalin walba sidoo sheegay bil walba waxay ku leeyihiin 40% taasina waxay sababaysaa in la qaybsado waxa yar oo ka soo saaray YouTube-kiisa balse horraantii YouTube-da uu bilaabayay dawladdu magacan qabatay su'aashaasi ayaa taala bartoosay comment-ga nagu soo xariiq adigana daawanaya haddaba Soomaaliland gobol ma yaqaana ma aqoonsan yahay magaceeda ma yaqaana xafiis ma ku leeyahay intaas oo su'aalood ayuu Cabdiraxmaan su'aalay Musabiixi iyo xukuumaddiisa balse daawadayaal wali haatan lama hayo cid ka jawaabta haddaba Cabdiraxmaan ayaa naftiisa la cararay isla markaasina ka haajiray gayga Soomaaliland markii ay arrimo noocaasi Soomaaliland kala kulmeen haddaba Cabdiraxmaan ayaa muddooyinka ugu dambeysay social media haystay arrintiisa annaguna waxaan u leenahay arrin wacan ayaad samaysay waanu ka soo daba soconaa Cabdiraxmaan waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyowga intaas ayaan ku soo koobaynaa muuqaalkeena aad u mahadsantihiin